kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba meel kasta oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha xagaaga iyo xaragada hooyga ee sanadka 2018 lagu tartami doono midabo cusub oo aad iyo aad uga heli doontaan iyo waliba dad cusubna ay ku tartami doonaan wow dooqa sanadkani ku cusub ee lagu tartami doono ama tartamayaashu ay ku tartami doonaan ayaa waxa kamid ah madow iyo dahabi Soomaalidu waxa ay ku mahmaahdaa farda la isku hayo maxaa la isaga faanin halkani waxa ay shanta gabdhood ku soo bandhigi doonaan mid waliba dooqa ay jeceshahay ama midabka ay jeceshahay inay gurigeeda ka dhigato anigoo ku sugan magaalada Hargeysa oo ah Hodan Cabdiraxmaan waxaan ku tartamayaa midabka dahabiga iyo madow marka gurigaaga ka dhigto dahabi ee aad saarto maro ama barkimooyin yar yar oo madow waxaan aaminsanahay inay indhaha u fiican yihiin marka midabka dahabiga iyo madowga waa waxa nafteeda la jecelahay waa sidoo gurigeyga u yaalo ama qaabka gurigeyga u yaalo waxaan rabaa bulshada inaad ila aragtaan magacaygu waa Xamdi Sureen Xamdi Qaali waxaan ku tartamayaa midabka sibidhiga sida gurigaan dhex taaganahay mustaqbalka sida gurigeyga u goglana intii la dooqa taageerayaashayda codku xaqiina anigoo ah Ifraax Ahmed Ciise Ifraax Hargeysa waxaan ku tartamayaa midabka buniga ah gurigeyga alaabta aan dhigtay waa bunni gurigeyga markii aan midabka buniga ku sharaxay wuxuu noqday sidan aad arkaysaan maadaama kalarka Soomaaliduna uu yahay bunni taageerayaashada waxaan ka codsanayaa in intay la dooqaa in ay ii codeeyaan midabka buniga igula soo dhawaado magacayga waa Asmaa Ahmed Ismaaciil Asmaloof waxaan ku tartamayaa sida adigu ogeydeen midabka cadaanka online midabka cadaanka waa shay aniga mar walba qalbigeyga ku jira sidaan u taageereen hore waan idinku sheegay saadaradeed waxaan leeyahay taageerayaashayda iyo dhammaan dadka midabka taageera cadaanka ah wayka ah codku waa halkiinaan leeyahay aniga Yurub Maxamed Cabdi Yurub geeyo dooqaygu waa midabka binkiga waxaan leeyahay taageerayaashayda codku waa xaqiina waxaan isleeyahay insha Allah hadii Ilaahay gaarsiiyo mustaqbalka sida gurigana dhex taagan oo kale inaan ka dhigi doono gurigeyga binki labada midab ee ku guuleysta tartankani abaalmarin cajiiba ama caalami ah oo ay bixin doonto shirkadda Al-Nur Furniture oo iyadu fududeysay barnaamijkan xiisaha xagaaga iyo xaragada hooyga haddaba daawade codkaaga si tartamaha aad ku dooqatihiin isla markaasina ka xulo midabka aad jeceshahay وحقاق هذا داوديال qaabka aad ku codeyn karto waxa weeye in aad booqato page-ka Al-Nur kuleeyahay hay Facebook ama xarunta idaacadda ee Radio Hargeysa ka soo horjeedka meesha uu ku leeyahay Al-Nur Furniture halkaas oo aad ka heli karto sanduuq aad codkaaga ku dhiibato